مدن رئيس الوزراء wasiirada maamul goboleedyada wasiirada federaalka waxaa la jooga halkan Bekos xeer ilaaliyaha marti sharafka kale iyo dadka saaxiibada ah oo runtii ka socda international community-ga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مدن رئيس الوزراء waxaan qabanay runtii wax aad u weyn oo milestone oo aad u weyn oo dhihi karo ila ma aha aniga waxaan qabaa Soomaalida hadday isku timaado wax badan oo intaan kasii fiican inaan qabsan karno inaan isqancin karno inaan wada fariisan karno in wixii dhibana dhexyaala inaan iska saari karno in aan wax weyn qaban karno ayaan aaminsanahay aniga oo intaan ka weyn 3 maalin 4 maalin 5 maalin ilaa 10 maalin ilaa 20 maalin haddii la fadhiyo laakiin outcome uu yahay outcome Soomaalida ayaga ay diyaarsadeen ayagana uu ka yimid waxaan isleeyahay intaasaa nagu filan intaasaa waxaan raadinayna waa intaas wixii qaldamayna waa dhexdayna inaan ka saxano ayaan aaminsanahay waa sax awal waxaan ahayn waddan shuruucdiisa iyo shaqada sida uu shaqeeyay wax walba uu ku dhisnaa centralism ama unitary system haystay waa ka baxnay ummadda Soomaaliyeed iyadoo yacni grievances kala tirsanayso dagaal sokeeye soo maray qabaa'ilada isdileen waxaa lagu heshiiyey oo aan isdusinay in waxa keliya oo aan wax ku wada qabsan karno inay tahay inaan anagoo qaadano federal systemka waa nagu cusub yahay aqoon badan uma lihin wadamadii hore usoo isticmaali jiro ilaa hadda isticmaalayaa maalin walbo challenges badan kala kulmo oo challengeska saxiitaan ku jira mar walbo annaga haddaan bilaabaynaa waxaana loo baahan yahay dee federal systemka aan qaadanay inaan yacni ku base garayno ku salayno booliiskii Soomaaliyeed iyo qaabka u qaadan lahaa marka maalmahan oo dhan intaasaan u fadhinay waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo runtii guud ahaan horta wada mahadcelinaa wasiirada maamul goboleedyada waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo wasiir Darwish oo Jubbaland ka socda oo runtii wisdom iyo odaynimo iyo toosin iyo guidance intaba aan ka helnay runtii waxaan rabaa inaan si gaara aan ugu mahadceliyo annaga naftayna dowlad ahaan federaal ahaan waxaan qabaa in sidii la rabay inaan u engage garaynin maamul goboleedyada inaan aanan u engage garaynin oo hadda kadib ay noqoto dhabo cusub iyo waddo cusub oo aan furno oo aan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka la isku xiro sababtoo adduunka dhan federaal waa ka jiraa waana shaqeeyaa annagana waa ka shaqaysiin karnaa runtii waxaan isleeyahay dhibkana haysta waa laga bixi karaa maanta dhibka jiro Soomaaliya waa laga bixi karaa tartiib baa looga bixi karaa istiraatiijiyo wanaagsan annagoo la imaanaa uga bixi karnaa caqli iyo vision annagoo la imaanaa uga bixi karnaa intaas haddaan isku darsano waxaan aaminsanahay federal systemka naftiisa inaan hagaajin karno oo aan samayn karno waxa ka qaldanna aan sixi karno wax badan baa laga soo gudbay oo intaa kasii daro maanta meesha joogno waxaan qabaa meel fiican inaan taagannahay waxaan aada ugu faraxsanahay marka oo aan rabaa dhammaan intii shirka technical committeeski iyo technical expertisekii kuwa wasaaradda ka socday iyo booliiskii iyo maamul goboleedyada dadka la socday oo khubarada ahaa dhammaan inay u wada mahadceliyaan rabaa sababtoo ah milestone kan hadda la sheegay inkastoo aniga milestone weyn aanan u arag haddana ma suurtoobeen haddii aanan la wada shaqaynin haddii aanan la isqancinin ma suurtoobeen laakiin isqancis iyo wada hadal iyo annagoo dhahnay annaga Soomaalida geed bay hoos fadhiisataa isku ay wixii problem dhex yaalla ku xalliyaan marka annaga keliya yaan la dhexgelin yaan loo turjumin saasaan horta intaan kusoo gaarnay alxamdulillah intaan inka badan ina qabanaan rajaynaynaa just to conclude my remarks I just want as a token of appreciation I want to say thank you to UN Police Commissioner AMISOM, AU, UNDP for your continuous support and assistance and for making it possible to hold this conference here in Nairobi. Mudane Ra'iisul Wasaare intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaan rabaa inaad noo soo xirto oo aan ugu soo dhaweeyo